mudane madaxweyne aad iyo aad ayaan kuugu hanweynaa runtii markaan runta kuu sheego aad iyo aad aan u niyad jabay waxaana u niyad jabiyey wax kale ma aha shalay markii aad imaanaysa aad iyo aad aan kuugu taabacsanayn aad iyo aad aan kuu soo dhaweynay aad iyo aad aan kaaga dhacsanayn ma tihid nin xukunka ku cusub nin ra'iisul wasaare wadanka ka soo noqday ayaa tahay nin waxaad tahay very talkative ayaad anigu waan xasuustaa aniga amarkan gadaal kaaga dhacay ma aqaano haddii lagu haysto ood la haysto tahana inaad noo sheegto waa fiican tahay maxaa yeele wax alla waxaan ka qaban karnaa ka qaban lahayn dadweynuhu kicitaankooda wax yar ma aha midda kale magaalada xamar oo maalin walba qarax ka dhacayaan oo maalin walba lagu dul dagaalamayo xanuunkeeday leedahay iyadoo caasimad ka sokow aniga waa baladkaygii meeshaan ku dhashay una dhashay waaye aad iyo aad ayayna ii dhibaysaa maalin walbaba in lagu dul dagaalamo hadda marka barito dhowr saacadood aad naga xiga aniga ayay saq dhexe ii tahay idinka waagaa idin bari raba maxaa la samaynayaa waaye marka 3 leemid noqonay baladka ma ku dagaalamaysin laba shirma la kala qabana mid mudday hogaaminaya iyo mid jawaari ma la kala qabana markaas laba go'aan laga soo kala saara laba dawladood ma magaalada kala dhigaysiin ya halka saddexaad maxaa waaye ishak ma jiro hal saddexaad ma jiro hogaankaas waxa laga rabaa oo shaqadiisu ay tahay intaas kaliya ma aha inuu cadaalad dadka horseedo cadaalad inuu dadku horseedo inuu daacadnimo la yimaado maxaa yeelay wax walba waa daacadnimo ogaada ninka mas'uulka ah hadduusan daacad ahayn wuxuu keenaa dadan daacad ahayn kuwaasa waxa la marka oo isku keendira ogaada maxaa yeelay qofka hadduu xanuunsan yahay wuxuu rabaa kulligeena wada xanuunsannahay qofkaas waxa laga rabaa hogaanka ah inuu aamin leeyahay oo ummadaasi ballanta uu ka qaaday iyo waxa loogu dhiibay inuu sidee ahayd ugu maamulo oo kii tuuga ahaa u qabto tuuga qabiil ma laha ogaada reer ma laha maxaa yeelay qofka xun wuxuu gadaal gashadaa reer hadduu xun yahay wuxuu yiraahdaa reer ahaana naloo haystaa waa nin xun ogaada oo soo dhigtay inuu dadka dhaco wuxuu khaldayaa dadka marka uu leeyahay siduu isagu wixiis u qaato aduu ku khaldaya ku leeyahay reer ahaan reerkaas loo nicib yihiin ogaada marka annagu waxaan qirnay hal qof oo meeshaan fadhiya hadduu ii sheega caawa inaan wax ku kala duwannahay hal mar halkaasaan ka baxayaa isku dhaqan ma nahay ma dhaqan kale oo aan Soomaali aan ahayn miyaa jira soo dad salaana ma nihin dad luqad wadaaga ma nihin marka mudane madaxweyne adiga si qaasaan kula hadlayaa sababtu waxa ay tahay wax badan oo waa ogahay aniga live-ka marka adiga kula soo hadlay waa daawata waa la socdaa wax badan oo hoosan ogahay please you have to speak up ina hadashid waaye ina mowqifkaaga cadaysid waaye tusaalayaal cadcad waxyaabaha i walwal gelinaya oo adiga iyo ra'iisul wasaaraha aad ku dhaqanteen tusaalayaal cadcad ayaa aan ka siinaa wadaadkii qalbi dhagax ahaa markii la dhiibay dad badan ay dhibaysaa hadalkiisa balaaya horta idinkaga ma horreyn run baan idin sheegayaa balaaya idinkaga ma horreyn qalbi dhagax dhiibistiisii markii la dhiibay maalintii xigta oo aan filanayna inaad hadasho adiga oo aan hadlin tuutaad soo gashatay wadanka waxaad gelisay xaalad degdeg ah maxaa ula jeeda meeqa jeer wadankan xaalad degdeg gelisay mudane madaxweyne odanna ka saarin bal wadan xaalad degdeg la gelinayo oo laga saaraynin ee haddana asoo tii ku jira mid kale la gelinayo ee laga saaraynin ee haddana asoo tii ku jira mid kale la gelinayo what is wrong with you maxaa ka qaldan mid kale dad buugta ku haaya oo hadalkaaga ku xasuusiyo oo falalkaaga ma qabtid ya ma qabtid staff kula shaqeeya staff ku xasuusiyo hadalkaaga ma qabtid miyaa mudane madaxweyne على الحمو وين يبغيسا أنا أوين ديارهم هي أنا كمان ربينا نويو because in the beyond هو أوجه لكن why ما حكى قلدن ودن أنت ستوتا تسوق شنو ودنك واحد قلني حالة دقدقة
haddana ma ka bixinaysa haddana aso xaalad degdeg ku jirta mid kala gelinay intee lagu arkay wadan 3 jeer xaalad degdeg la marka halka Soomaaliya waa hoggaan ilaahay hoggaan wanaagsan oo intaan sheegay xigmadaas aan sheegay leh ilaahay hana siiyo kuwii hogaamiyaashii hore waa soo qabteen laakiin runtii waxa la bedelo ama waxa la sameeyo daara ma aha baabuur ma aha dadka maskaxdooda way in laga shaqeeyo oo dadka lagu dhaliyo oo la geliyo inay hal qof yihiin annagoo hal ah yaan la tartameynaa haday yihiin Kenyaati haday yihiin Ethiopia haday yihiin Uganda haday yihiin South Africa cid walbaba hawshaasna waxaa laga rabaa hoggaankaas aan idin sheegay oo daacadda ah oo patriotic ah oo wadaniga ah oo dadka Soomaaliyeed hal qof u haysta ma karad warsoo hay saawicina idin ma dhihin hay saawicina in karbaad qabtaan idin kanay okay taas waa mid kala fiiri mudana ra'iisul wasaare adiga nin dhalinyaro ayaa tahay nin loo hanweyn yahay ayaa tahay nin waxaa tahay runtii aan meel wanaagsan ka filanayn aniga waxyaabaha beenbeenta ama aamino oil and gas u shaqeeya iyo aniga ma aamino laakiin hadda waa ku tuhmay waxaan kugu tuhmay marka aad wax qalada dawladda samayso ilaa dawladda aad madax ka ah adaa ninka ra'iisul wasaaraha ahaa madaxweynaha marka laga reebo wasiirada dhacday ku simaada wax qalada markaad samayso wax kala nagu maaweelinay dadku ma xoolad mooday wax qalada ha sameeyna wax kala nagu maaweelinay qalbi dhaba xal dhiibay waa soo boodo waxa tir jaamacad bay dhaba ku taala ka khudbayso waxa tir ardayanka aan mushaarkeyga uga bixiha waa fiican tahay laakiin intaadan waxba dhiibin xa u bixi waysa mushaarka ya sadaqada marka loo baahan yahay waa mar walba loo baahan yahay qaladaadkaaga inaad wax kala ku qariso ma aha qalad way absolutamente okay markii wax dhacaanba oo aad qalad samaysaba wax kala ku soo booday jawaariyaad isku taagtay waxaad leedahay waxaan xamaran ku mara maxay toonoo lug oo waxaan u kuurgalaa nabadgelyada xaad nabadgelyo kuurgalay adaaba dagaalka ciyoob haayeen mid kale mid ma ogtihiin adiga iyo xildhibaanada lacagta kursiga ku yimid mid ma ogtihiin ya mid ma ogtihiin tusaale idin soo qabsanaa si dadka da'yarta caruurta yaryarna ay wax u fahmaan tusaale idin soo qabsanaya waxa waaye faan wax ma lagu noqdo ficil wax dhala ficil ويلا واك سمينا واك دحا واك وحينا wax ay taraysa male dadkan baahan ee baaba'san ee dawladnimadu dilootana waxba ma u tarayso ficil ayaa la rabaa waa ogahay wadanka inuu dhib badan yahay waan idin garaabaya in culays fara badan oo idin saaran yahay waa ogahay in maxay ahayd toona afarta dhinac la idinka jiidayo waa ogahay in nabadgelyo xumo ay dhinac ka jirto waa ogahay in qaraxya la iska ilaalinayo waa ogahay wax kasta waa ogahay bad anaga ilma manahin wadankan waa idin la leenahay for God's sake si kasta wadanka uga maqnaa ma ka maqnin waa dhex joognaa maalin walba wadanka dhex joognaa bay dhabaan jooga Hargeysan jooga maxay taa waxaan jooga Puntland aan jooga everything waa ognahay okay all right sida ilmihi noola dhaqantaan ma aha marka ilmihi inaan noola dhaqantaan oo kale ta ma aha qalada sameeyna wax kala ku duuga qalad kala sameeyna wax kala ku duuga wax qalad kala sameeyna wax kala ku duuga no anaga ilma la sasabaaya manni okay waxa ku soo haray waxyaabaha qalbinaha ah oo qaracanka laga qaadayo oo qof kasta oo aqliga uu ka qaraxmaayo oo dawladda ay bilowday dawladana ka hor aan jirin baa idin sheegay caawa in $5 lagu iibsado idinka noo bilowday oo waliba inta xafiis loo furto faankii intuu la geeyay waa yaabe faan in $1 lagu iibsado idinka noo bilowdeen halkeen la geeyay faanka halkeen la geeyay anaga inaad guulaysataan aan idin rabnaa ma rabna inaad dhacdaan laakiin faankiini xageebuu la geeyay intuu la dhiga faankiini ya inta idinka daba faanaysa caawa haddii la isku qaadqaado qof joogaysa male araasada maarata gabar la aroosaayo
arooskada xafladeeda ma ka qayb gashan wadi haddaad ka qayb gasho oo arooska tagto dumar baa baraanbura inaad ogtiin kala ma aqaan horta qurbaha waa saas maalin kasta dumaraa baraanbura dumarkaas baraanburaya haddii arooska rabsha ka dhacdo oo gabadha arooska ay cararto dumarka iyo koo kaban lahayn oo dacas wadan oo kaba wadan ayaga albaab ka baxaan dadka idinka daba baraanburaya ya waa dumarkaas baraanburaya kala waay haddii aroosada cararto oo idinka haddaa carartaan maanta oo meesha inta balaaya ka dhacdo dagaal ka dhaco ya ee la isqabsado dagaal aad weliba idinka sabab u tihiin meesha uu ka dhaco kuwaas waxay noqonayaan islaantii arooska ka baraanburaysa waana cararayaan weligay ma arag dawlad rabta inay faan lacag ku gadato abidkay abato cimraadkay intaan dacdaan aan jiro ma aanan arag war si kasta midda kale mid ma ogtihiin especially mudana ra'iisul wasaare adiga mid ma ogtahay walaalkaya tahay adeerkaya tahay aniga kursi hawiyaad ku fadhidaa runtaan kuu sheegayaa bal waxaa la yiri walaalka laba jeer u hiile markuu gardaran yahana u hiile oo gardarada ka qabo marka laga gardaran yahana u hiile waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga oo dhanaaba madax dhana ay xanuuna wallahi waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii xoog wax lagu fulinayo niman hadda sanatara ah oo baarlamaanka ku jira madaxweynayaal ahaa lahay weligoodna xukun ma taaban adeerkay muuse suudi madaxweyne u ahaa lahay adeerkay cabdi qaybdiid madaxweyne u ahaa lahay war intaas oo qof madaxweyne ahaa lahay morgano intaas oo qof waxagoodi loo haystaa madaxweyne ahaa lahay bal meeqa qofood baa xoog madaxweyne ku ahaa lahay haddii xoog wax soconayo adeer xoog ma shaqeeye system baa shaqeeye dowladnimada system waaye systemka ka shaqaysiiya annagoo baxaagi ayaan idin garab taaganahay annagoo muwaadiniina idin garab taaganahay waxba hana yasina si kastoo singalmaadan unahan banaanka jirno wax kasta waagno idinkama dhagayarin ya idinkama dhagayarin ninkii wuxuu yiri nin baa naag waxa la yiri wuxuu uga dhalay canug si tuuga oo qodba sira oo aan la ogeyn hadhowna waa inkira canug naagti waa qodba siraystay meherkeedii lama ogeyn uura yeelatay wiilow ka dhalay waana inkira adaga dhalay loo yiri saan loogu ogaanin wiilkii waa weynaada reerkii oo u dhaan tagay islaanta odagiina islaantii oo qabo isna u dhaan tagay ay isugu tagaan wiilkii aabihii wiilkii waa yar yahay asaguya walaanta oo soo jiidi maagay oo jugsiyo odagay wuxuu rabaa canugan oo ma dhalin jiri inuu ceelka ku rido wuxuu yiri aabbo ceelka haygu ridno yiriga ma dhagayrina ay dhasho waqtiga hadda annaga idinkama dhagayarin idinkoo wadanka haysiin aan idin ognahay wax alla iyo talaabadaad maalin walba qaadaan marka gardarro ma fiicno sharciga oo la hareer marana waxay dhashaa sharci kale oo la hareer maro midda kale waxaad ogaataan haddii sidan baarlamaanka lagu dudumiyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha idinkuna ismoogaan maysaan maalinka dambe idinka la kala qabqabanaya mana rabnayna intaas nala gaarto fadlan sharciga ilaaliya haddaa ninkan mooshin ku filan u haysaan oo aad sharci ku ridi kartaan sharci ku rida haddii aadan haynina oodan sharci ku ridi karina iska daaya ninkan shaqadiisa ha qabsado idinkuna shaqadiisa qabsada wax fara badan oo hawl fara badan ayaa idin taala dowladnimadu fan maaha fakfak iyo fudayd maaha indha faraka galis maaha ma fahamtay sharcigana fogey maaha fadlan kala jeesta nin walba hawshaada qabso waddankaana badbaada u baahan yahay badbaadiya dadka muwaadiniinta ee talada fiican idin hayana talada ka qaata maxaa yeelay talo waxa la yiri adiga ku noole ayada kuguma noola aniga wixii muhiim ah caawa on sheegi lahaa intaas ku soo koobaya laakiin ballanteenu waxay tahay in dowladnimada dudumka laga ilaaliyo dowladnimada dudumida in laga ilaaliyo dalka idinka kaligiin ma lehidin annaga waa idin la leenahay muwaadiniinaan nahay walaalihiinaan nahay waan u diirnaxaynaa oo dalkan u diirnaxaynaa shakhsi jacayl gooniya naguma jiro laakiin waddankan u diirnaxaynaa idinka ayaa ilaahay idiin siiyey xaq in aad maxay ahatoona iyo waxaaga inaad xukunka noogu fadhiisataan waana ogolnahay waana idin taageeraynaa laakiin waa in aad wadada wanaagsan raacdaan oo aadan sharciga hareer marina sharciga ha hareer marina mudane madaxweyne
محمد عبد الله فرماجو مدن الرئيس الوزراء حسن علي قيره مدن جواري adiga hadda waxaan ka sheega ma hayo sharciyeed ku taagantay saasan kugu ogaa sharciga saas uga taagnaw sharci ilaa ay kugu ridaan ma ahane ha bixin ma kugu ogi inaad baxdo مدن الرئيس الوزراء ربشده iyo fudaydka iyo fakfakta naga dhaaf nin yaraa tahay tartiibka caga dhigo noo tali ra'iisul wasaaraha tahay 3 sano oo ku dhiman aan ku taageerno ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha isla shaqay waa kala fuqeen inta booga ah ayna gaarsiiso dawladihii hore ma maleyn kartid mar kale inaan maqalna ma rabno mudan madaxweyne adiguna afdhurta ka bax oo hadal la hadal dadka war hadaadan hadli karin oo adiga aadan hadli karin qof khudbada ku akhrisa samayso waa ogahay aniga mental health aan barto qofka markuu too much stress yahay ma hadli karo inuu dhunto jeceliyaa waa la socdaa but please and please hadal sababtu waxay tahay hadalkaaga ayaa dawladnimada iyo hamigeeda iyo socodkeeda ku xiran wadankaana ha foortagadinina wax badan oo dhibaato laga soo maray xoog cid haday wax ku noqonayso kuwa sanatarada oo wax kale ka badi waa inay sanatar noqdaan saacada madaxweynayaal noqon lahaaya ya aad iyo aad u mahadsantiin intii daawatana aad u mahadsantiin halkaan hadal ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku duceysanayna insha Allah idanka ilaahay in aynan wax dhibaato ah aanay dhicin oo dadkaana waxooda soo afjarmaan aad iyo aad aan u mahadsantiin ballantaanu waa shaqo dawladnimada oo la taageero sharciga oo la isgarab taago xaqa oo loo dadaalo oo la taageero iyada oo la is ixtiraamo systemka dawladnimada la dhowro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu